nasiib darro weli uga guulaysan dhibaatada in la damiyo maaha in la daweeyo laakiin hadda waxaa loo soo jeestay hawshaas dhammaan in la xalliyo hadday maamul tahay oo madaxweynayaashu hogaaminayaan hadday isima tahay iyo hadday dadweyne tahay dhammaantood waxaana fidsan oo gobolka tahay gobol nabadeed oo lagu xallinayo khilaafaadka iyo waxyaabaha yaryar ka jira gobolka islaamka taladiisa araaco war islaamka taladiisa araaco magaaladan qaylo dambe oo nabadaraahi iisa ka soo yeelin baa muhiim wax dhan baa la yidhi gaalkaayo waa magaalo fidne magaaladii nabadu ka bilaabatay baan ka dhigi doonaa insha allahu tacaala madaxweyne sida oo saaxiibkii codsaday waxaan rajaynaynaa sida halku dhagaagu ahaa aadna in badan aan ka wada hadalnay si gaara inaad ahamiyadda siiso dib heshiisiinta inaad ahamiyadda siiso midnimada dabcan markii dadku heshiiyaan midoobaan wax badan oo hadda ina kaga maqan oo dowladnimadeena naaqus ka dhigtay ayaa dhammaystirmaya marka si aad u qaadatay barnaamijkaas isaga ah ayaan anaguna kugu garab istaagaynaa kuguna shaqaynaynaa labada dowlad goboleed xildhibaanadooda iyo golahooda wasiirada marti sharafta kale kulligiin waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh socdaalkayga aan kusoo khatimay maanta puntland wuxuu ahaa socdaal aan ku raadinaynay dib u heshiisiin dib u heshiisiintaana waa waxaa runtii muddo dheer aan wada sugayna kulligeen kulli soomaalida oo dhanna ay ku taaminaysay haddii dib u heshiisiin la helo nabad baa la helay haddii nabad la helana horumar yaa la gaaray marka meesha keliya aan odhan karo inay tahay inaan ka bilaabo dib u heshiisiinta waxay igu muuqatay inay tahay magaaladan gaalkacay oo runtii xalka in laga bilaabo mudan meel la yihahdo checkpointiyada laga soo galo magaalada meel waxaa jirta la yidhaahdo caano ka dhan xabadaa lasu haystaa marka caano maahee xabad baa taalla marka nawaaxigaas dadka degan waa ka guuren areada maxaa yeelay meesha caano ma yaalaan dhibkaas wuxuu gaaray dadka inuu shaki kala geliyo iyo baqdin iyo walwal waxyaabaha u diiday magaalada horumarkeedana taas weeye maxaa yeelay qofkii maalgashi samayn lahaa markuu maqlo caano ka dhan wixiise dib buu la noqonaya marka checkpointgaas magaca laga bedelo waxaa ku jira dadka dhexdiisa shaki iyo cabsi oo dadka aysan isu gudbaynayn bini aadamkuna nabaddu waxa weeye calooshoo maran qofku waa noolaan karaa laakiin qofka uu walwalaayo oo aan seexanayn ma noolaan karo haddii aysan nabad jirin sidaas darteed waxaan rabnaa inaan dhammaystirno isagoo islaamku uu horseed noo yahay hormood noo yahay salaadiinta kale oo la shaqaynayaan culamaa diinka iyo siyaasiyiinta labada dhinacba in magaaladan ay noqoto magaalo rugti ganacsiga ee gobolada dhexe ah oo ganacsigii iyo maalgashigii u yimaado dhalinyaradu ay shaqo ka helaan